xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka degmada Laascaanood mudane Awil Ismaaciil Faarax oo shir jaraa'id ku qabtay hotel Casuura oo la hadlayay qaybo ka mid ah warbaahinta gobolka ayaa ugu baaqay bulshada gobolka Sool inay u diyaar garoobaan xuska maalinka 18 May. xuska 18 May waxaan ku baaqayaa in sida ay tahay ay u dhacdo. waxaan ku baaqayaa in la soo dhaweeyo. waxaan ku baaqayaa in aan sida khaldan wax loogu raaco wax loo dhigin ee ay si nabadgelyo u dhacdo. sidoo kale xildhibaanku waxa uu bulshada gobolka ku baaqay inay ka shaqeeyaan amniga iyo xasiloonida gobolka. anigoo xildhibaan Awil Ismaaciil Faarax kana mid ah golaha deegaanka degmada Laascaanood waxaan maanta war-saxaafadeedkan kaga hadlayaa baaqan u dirayo bulshada Laascaanood oo ah inay nabadgelyadooda ilaashadaan oo ka shaqeeyaan nabadgelyada oo la shaqeeyaan ciidamada nabadgelyada waayo nabadgelyadu waxa weeye waa nolosha. hadda bulshada reer Laascaanood guud ahaan waxaan ugu baaqayaa inay la shaqeeyaan ciidamada nabadgelyadoodana ay ilaashadaan maamulka gobolka cid kasta oo ma garanaysaa administration waa inay la shaqeeyaan waayo nabadgelyadu waxa weeyaan waa shay qaali ah noloshuna waxay ka bilaabantaa nabadgelyo. Qadar Tarabi Somali News magaalada Laascaanood.